wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland ahna afayeenka xukuumadda Soomaaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ayaa hambali iyo bogaadin u diray shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland maalinta qaran ee 18 May. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland oo kamid ah guddiga heer qaran ee munaasabadda qaran ee 18 May ayaa sheegay in sanadkan si ballaaran loogu diyaar garoobay munaasabadda qaran ee 18 May. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland ahna afayeenka xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegay in ka xukuumadhan loo diyaar garoobay munaasabadda qaran ee 18 May waxaanu shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ku booriyay in ay ka qayb qaataan munaasabadda qaran ee 18 May isla markaasna ay ilaaliyaan nabadgelyada jamhuuriyadda Soomaaliland. marka ugu horeysa waxaan halkan salaanta islaamka ugu gudbinayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland meel kasta ay joogto. waxaan kaloo hambaliyo halkan uga dirayaa in Ilaahay inaan ku gaarsiiyo dhowrka maalmood ee soo socda dabaaldegeena 18 May inagoo bashbash iyo barwaaqo iyo nabadgelyo haysana. waxaan muwaadin kasta oo reer Soomaaliland meel kasta joogo ka codsanayaa inuu si degan uga qayb qaato maalinta dabaaldega qaranka iyo la soo noqoshadii xornimada ummadda reer Soomaaliland. waxaan ku faraxsanahay inaynu si weyn ugu diyaar garownay oo aan guddiga ka mid ahay in aynu qabanno 18 Maygii iyadoo ka sii weyn kuwii hore ee aynu qaban jiray. muwaadiniinta ku kala nool daafaha dunida waxaan gaarsiinayaa salaanta guddiga 18 May oo aan leeyahay idinkuna meeshiina ku ciida oo ku dabaaldega. annaguna halkan caasimadda iyo gobollada dalka ayaa lagaga dabaaldegayaa gudaha si weyn. ummadda reer Soomaaliland waxaan leeyahay qof kasta mas'uuliyadda uu ku leeyahay ka guto dabaaldega loo samaynayo 18 May oo ay ugu horeyso in qof kasta uu qayb ka noqdo. mas'uuliyadda labaad oo saaran waxa weeye inuu ilaaliyo amniga qaranka uuna noqdo qof ka mida wax ku soo kordhinaya qaranka meel kastoo jooga. waayaha adduunyada ayay iska tahay in mararka qaarkood ay wax lagu kala duwanaan karo. ciddii cid fakarka ka duwani waxay ila tahay inay goobteeda joogto oo aanay wax dhiba isku dayin inay samayso. qof walba mas-uuliyad baa saaran inuu ilaaliyo nabadgelyada. aad iyo aad baan idin salaamayaa. waxaana idin leeyahay 18 Mayga soo socota ee dhowrka maalmood inoo ka harsan tahay ama labada maalmoodba aynu ku gaadhno 18 Mayga kale bashbash iyo barwaaqo badhaadhe ummadda reer Soomaaliland oo wada jirta iyo inagoo dad isku tiirsada ah oo qofba qofka kale uu u arko walaalkii oo ay wada jiraan. dhinaca kale wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ahna afayeenka xukuumadda Soomaaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore ayaa fariin u diray warbaahinta kala duwan ee dalka oo uu sheegay inay doorkooda ka qayb qaataan horumarinta dalka iyo ka qayb qaadashada munaasabadda qaran ee 18 May. wasiirku arrimahaasi ka hadlaya waxa hadaladiisii ka mid ahaa warbaahintu nooc kasta ay tahay. nooc kasta oo ka mid ah warbaahinta hadday tahay Facebookeriska hadday tahay YouTuberska hadday tahay onlineska hadday tahay TV-yada hadday tahay dhammaan nooc kasta oo social media nooc kasta oo warbaahina mas'uuliyad gaar ah ayaa idin sii saaran inaad qarankan la xafladaysaan oo aad qof kasta gaarsiisaan daafaha dunida. waa mas'uuliyad gaar ah oo aad leedihiin warbaahintu. waxaana idin leeyahay idinkuna si muwaadinimaha uga qayb qaataa maalinta qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland. guul baan idin rajaynayaa.